dowladnimada ay ku sugan tahay maantay waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dowladnimada ay soo noqoto waxaan leenahay marka waa la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay aqbali jireen in madaxdooda ajaanib ay u kala turjunto waxaan leenahay haddii aan madax nahayna waa inaan ogaanaa inaanay shacabka Soomaaliyeed naga yeelayn nagalana aqbalayn marka maadaama aanay shacabka Soomaaliyeed yeelayn annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka Soomaaliyeed ogolayn sababtoo ah inaan aqbalno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka saldhigga u ah dowladnimada hadda noo dhisan danaha Soomaaliyeed waxaa ka turjuma shacab iyo madax Soomaaliyeed ma yeelayno inaan 20 sano ka badan dib u noqono annagoo marka ka shaqayn doona wax walba oo keeni kara inaan hore u dhigno qarannimada iyadoo looga shaqaynayo maskax iyo maal iyo muruq Soomaaliyeed waxaan soo dhaweyn lahaa marka inaan idhaahdo ballanteenu waa inaan kulligeen Soomaalinimo dalkeenna u wada dhisannaa waxaan leeyahay marka kii ka dhuunto dhibka diido dhaxal kuma leh